Ninkani waa aabe leh 4 carruur ah. Isaga iyo haweenaydiisii waxay ku dadaaleen inay carruurta u rabeeyaan sida ugu wanaagsan. Waxa ay laakiin haweenaydii ka dhimatay iyadoo ilmahooda ugu yari uu 7 jir yahay. Markaana ilmaheeda ugu weyni waxa uu ahaa 14 jir. Ninkan ayaa waxa uu iska daayay guurka kadib markii ay haweenaydii hore ka dhimatay, oo waxa uu waqtigiisii geliyay inuu Ilaahay u cibaadaysto, wixii ka soo hadhay cibaadadana uu carruurtiisa u samafalo. Waxaa mar walba caawinayay ilmaheisii ugu weynaa oo ahayd gabadh wanaagsan, taasi oo gashay booskii hooyadeed. 10 sano ka gadaal ayaa waxa u yimid 3 nin oo doonaya inay 3 gabdhood ka guursadaan. Aabahan ayaa waxa uu u baahday inuu guuriyo gabdhaha ta ugu weyn, dabadeedna ta ku xigta, dabadeedna ta ku xigta. Gabadhii weyneyd ayaa diiday inay guursato, gaar ahaan markii aabaheed uu aad u weynaaday oo uu daciifay, iyadoo doorbidaysa inay u shaqayso, maadaama aabaheed xanuunku uusan ka suulaynin mar walba. Aabihii ayaa 3dii kale u guuriyay. Gabadhii weyneyd ayaa aabaheed mar walba u samafali jirtay oo la joogtay, gabdhihii kalena danahooday qabsadeen. Aabaheedna waa uu dhintay. Markii odaygii dhintay ayay fureen dardaarankiisii, dabeedna waxay arkeen isaga oo ku qoray dardaaranka, waxaana ku qornayd warqadda sida tan: ha qaybinina ama ha dhaxlinina ilaa gabadhiina weyni ay guursato, waayo iyada ayaa nolosheeda u lumisay si aad idinku noolaataane. Gabdhihii waa ay tashadeen, arrintii aabahood u dardaarayna way ka baxeen, iyaga oo sheegaya inay guriga gadaan, dhaxalna ka dhigtaan, iyagoo aan fiirin meeshay aadayso gabadhoodii walaashoodii weyneyd. Arrintaa markay goynayeenna Ilaahay unbaa arkayay. 3dii gabdhood ayaa gurigii u bandhigay inay iibiyaan. Nin hantiile ah ayaana doortay inuu guriga gato. Markii ay dareentay gabadhii weyneyd in aanay jirin meel laga maro guriga iibintiisa iyo hantida qaybinteeda, waxa ay go'aan ku gaadhay inay la hadasho ninka doonaya inuu guriga iibsado. Waxayna uga warrantay qisadii meesha taallay, iyo inaanay iyadu haysanin gurigan mooye wax kale oo iyada ilaalinaya, isaguna ay tahay inuu ka sugo dhowr bilood inta ay helayso meel ay ku hoyato. Ninkii iibsanayay guriga ayaa waafaqay arrintii, waxaana uu ku yidhi, dhib ma laha, wakhtiga aad doonayso qaado. Ogowna guriga iibsan maayo ilaa aad ii soo sheegto inaad heshay meel munaasib ah, xataa hadday sannado kugu qaadanayso. Ninkii lacagtii guriga ayuu dhiibay markiiba. Hantidiina 4tii gabdhood ayaa loo qaybiyay. Mid kasta oo 3dii gabdhood ka midina nasiibkeeda inta heshay ayay gurigii ninkeeda aaday, iyadoo aad ugu faraxsan. Iyadoo dhoolla caddaynaysa ayay gabadhii weyneyd waxay gabdhihii kale wanaag ugu ducaysay, iyada oo ku kalsoon inaan Ilaahay dayacaynin. Maalin dambe ayaa ninkii waxa uu soo wacay gabadha. Markay aragtay telefoonkiisa ayay waxay istiri ballantii ayuu ka baxay, waxaana uu u sheegay ninkani gabadha inuu guriga meher u siiyey. haddiiba aad adigu aqbasho buu yidhi inaan ninkaaga kuu noqdo, gurigan meher u qaado. Anigu kuma aan riyoonin marnaba gabadh adiga oo kale ah. Ogow buu ku yidhi, haddii wax kasta oo aad adigu samayso oo waalidkaa u samayso, Ilaahay dayici maaye. Gabadhii waa ay oyday iyada oo arrintaas qaadatay, kuna qaadatay inaan Ilaahay dayacaynin dadka wanaagsan samafalkooda. Waa ay la noolayd ninkii hantiilaha ahaa ee guriga ka gatay. Gurigii aabaheedna waa ay ku noolayd, iyada oo weliba nin wanaagsanna la nool. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan sabskaraib saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. mahadsanid.